golaha ka dhacay maalin kasta adigoo ka daawanayay shaashada TV-da ilaa markii dambe ay gaadhay in madaxweynuhu amro in golaha qof lagu xidho hase yeeshee shacbiga reer Somaliland ee sharafta badan ayaa ka dhiidhiyey oo ka dagaalamay shacbigu waxay suurtageliyeen in golaha loo soo celiyo karaamadiisii iyo haybadiisii u lahaa waxaanu u mahadnaqaynaa shacbiga reer Somaliland waxaanu tacsiilaynaynaa ehelkii ay ka baxeen labadii dhallinyarada ay ku geeriyooday taastii aan xandarrada ahayd ee madaxweynuhu amray in shacbiga soo doortay lagu furo taariikhdu waa maguuso waana la husi doonaa waxa uu sameeyay faragelinta iyo curyaaninta shaqada golaha ee uu sameeyey soo celiyo xeero waxaana ugu dambeeyey 7 cisho ka hor ama 6 cisho ka hor soo celiyey heerka miisaaniyadda qaranka ayuu ahaa heerkaas waxaa ka horreeyey uu soo celiyey heerka xuquuqul-insaanka waxaa umalaynaysaa inuu soo celiyey heerka xuquuqul-insaanka inuu ku tacadiyo oo uu ku xadgudbo xuquuqda shacbiga reer Somaliland waxaa kale uu soo celiyey u sameeyey gaabinta iyo heerka doorashada madaxtooyada iyo deegaanada oo midaynaysay dadka doorashada kuwaasi oo tutalayaal aaninsiiyo waalayaal ummadda sharciga ku dhaqantaa ee waxay dhigatay way fashilantaa madaxweynaha waxaa waajibiyey inuu sanadka xukuumad u jeediyo baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland sanad kasta hal mar baa lagu waajibiyey 4 sano inuu hor yimaado golaha 4 sananu xilka haynaa hal mar buu yidhi waxaa dastuurku farayaa madaxweynaha in barnaamijkiisa xukuumadda uu keeno baarlamaanka sanad kasta si loogu ansaxiyo weligii ma keenin waxa uu farayaa dastuurku in heshiisyada uu galo xukuumaddu gasho golaha loo keeno si loo ansixiyo madaxweynuhu weligii ma hor keenin waxaynu ka waraynaa marar badan in madaxweynuhu ganacsiga si gaara oo aan sharci ahayn ugu xidhay dad gaar sharciga iyo xeerarka maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland waxayna qorayaan in dakhliga xukuumadda soo gala lagu shubo khasnada dowladda الدولة عن جرين ومدحتوية التوسط
dhigay warshada aan jirin ee dhagaxa dhigay wadooyin aan jirin ee ballan qaaday dhismayaal mashaariicda dhammaantoodaan hirgelin ee iibiyey dhulkii hantida guud ee aan ku subin lacagtii khasnada dawladda ee ilaa maanta aan sheegin lacagta maxjarka ku baxday intay tahay ee haddana maanta ilaa maanta ummadda ka doonaya cod ma aamini kartaan anigu su'aasha kuma wanaagsan laakiin nin kabiira wuxuu yidhi hoglayyadan inay ku sii hiradkiisa inaan ka hariyo ayaa ka hagaagsan sanadkan waynu ka harinaa soo maaha waynu ka harinaa soo maaha waditageen laha tago marala waditageen hana istagin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka muuminka ah laba jeer saddex ugu dhashay ummadii hay taladu idinka idiin taalla maanta waa idin hor taalla waana la yaab waxaa soo ballanqaadka ahaa ama sharciyiin ahaa ama hantikoob ahaa weli kuway filaan madaxweynaha weli kuway filaan wuxuu inoo sheegay dhammaanteen inuu halka wada jooga isagoo halkan taaganay ka hadlaya inuu naga rabo codkeen inuu 5 sano dambe xukunka ugu soo noqdo oo inoo xukumo 13 sannadood miyaa yeelaysaa taas هذا وهين حكومة حكومة في مدحويون ومدي صورتين الشعبي يبدويات ومدى أيضا عين جدا تقول لكبكاري وغيري والله وكيل واضح هذا وماذا كمالي وغيري والله وكيل هو الشاهدين ومعنى جوابي أنا ويجيني من الهوية ومطية وغيري صحافة وحافة أنا وجاهدي وغيري معارض وعلمي يغاني هي قلت أفكر المايا والله يا رب مدحوين وحاكم هاي ما يغانو توصي الأسماء ويبا وعلي نمبانين وكحشوري وهو حق دوري أيها البركية أنا نفسوي إن حكيمة أيها وكيا هواي إنه كحشوري يوشو شيء ولكن تقولون كنواي وروحات لكن طبعا تناول الكريسية هو كوايا لما تقولي بدأ عن البنت قلت برشدة إذا بلا كانت تفتح أنا من حوينها ما بأخذ النبو بدأ عن البنت قلت برشدة إذا بلا كانت تفتح